kulanti habboonid lahaantiin baa khiyaartaan hawada ku saaxiibnay waa marka la iyo barnaamijkeena wargeysyada waxay qoraan oo toddobaadkii hal mar kala socotaan bartaan YouTube ku leenahay Somali TV. Dowladaha Carabta oo ka fikiraya inay maalgashadaan dalalka Afrika ee Somaliland ka mid tahay waxa qoray wargeyska Geeska Afrika ka soo baxa magaalada Hargeysa. Dalalka Carabta ayaa xilligan ka fikiraya inay soo celiyaan xiriirka ganacsi ee la lahaayeen wadamada Afrika kaasi hoos u dhacay muddooyinkii u dambeeyay. Shirkan ganacsiga ee Afrika iyo Carabta oo bishii Oktoobar ee sanadkan ka dhacay magaalada Qaahire ee dalka Masar ayaa lagaga hadlay sida ugu habboon ee kor loogu qaadi karo xiriirka ganacsiga ay leeyihiin dalalka Afrika iyo Carabta. Warbixin dheer oo wargeyska African Business ka qoray waxyaabihii shirka lagaga wada hadlay ayaa soo tibiyay inay dalalka Carabtu muujiyeen muhiimadda ay leedahay in dowladaha Carabta ee dhaqaalaha xooggan ay maalgashi ku sameeyaan wadamada Afrika maadaama laga heli karo shaqaale qiimo jaban ku shaqayn kara iyo sidoo kale inay jiraan fursado badan oo abuuri kara dhaqaale buuran. Wargeysku wuxuu sheegay in xilligan dalalka Carabtu ay Afrika ka qaataan waxyaabaha biraha ama xadiidka laga sameeyo halka ay Afrika u dhoofiyaan ama ka iibiyaan waxyaabaha ay ka mid yihiin daawooyinka noocyada kala duwan leh mashiinada iyo bacaha. Laakiin ilaa hadda maalgashi muuqda oo dowladaha Carbeed ka sameeyeen dalalka Afrika oo yahay ka shirkadda DP World ee laga leeyahay Imaaraadka Carabta ay ka fulisay dalalka Somaliland, Masar iyo Senegal kaasoo ku kacay dun lacageed oo gaadhaya $1 bilyan. Intaas waxaan ku soo afmeeraya xubinteena wargeysyada idin la socodsiinaya anigoo ahayd Maamul. Tan iyo intaan dib u kulmi doona amaano la kulanti dambe oo xiiso leh.